إلو مارتي عبد الرحمن حلقة وكسي ودون هوشة حلقة إلهي وحن قبرين إلهي مارتي كوجر جارو مركا هذه أدن ينكم مع العلمية وأنا مع ستين dhammaantiin horta aad iyo aad baan idin wada salaamayaa mudanayaal marwooyin iyo dhammaan martida naga soo qayb gashay shirkan run ahaantii horta ku daali maayo waayo xoogaa waxaad moodaa inuu warkii nagu yar dheeraaday qolada saaxiibadeena ay campaign inooga yar dhigaan meesha Republicanka marka aniga dabcan wax badan baad maqli doontaan mar haddii aan ahay gudoomiyaha xisbiga wadani ee Minnesota أيضاً أنا وركي كل ريبة حين وصلت شغلنا ووضحت لي دونا طبعاً
marka waxaan horta doonayaa inaad idinka mahad noqon dhammaantiinba kalsoonida aad ii siiseen inaan noqdo gudoomiyaha xisbiga wadani oo ah xisbiga ugu ballaaran ee maanta ku yaala waddanka Somaliland dabcan waxa weeyaan Somaliland waa waddan dimuqraadi ah haddii aynaan jeclayn waxaan haysano waa inaan isku dayno inaan bedelno wax ku fiican dadkuna waxay ku kala duwan yihiin fikradaha sida fiican ee lagu bedelayo waxaad moodaa dadka qaarkood inay ku yar wareeraan kelmadda mucaarid oo macnaheedu yahay inay qaataan inuu cadow yahay cadow ma aha waxa weeyaan haddaanad jeclayn waxaad haysato waa inaad isku daydo inaad bedesho saad ku bedelaysaana oo democratic systemkii xisbiyaa jira xisbiyadana macnaheedu waxa weeyaan nin walba fikrad buu ka qabaa fikrad gaar uu ka qabaa sidii uu bedeli lahaa marka wadani waa xisbi aaminsan inuu ku joogo wadadii saxda ahayd ee lagu badbaadi lahaa lagu sameyn lahaa wax wadanka hore u sii wada qaasna waan soo dhaweynaynaa dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin warkasaan nii sheegay idinma gaabinayo waxayna sugayaan niman culculus xogayaha guud ee arrimaha dibadda ee xisbiga wadani Dr. Fadal baa jooga waxaa kaloo sidaan ogahay jira Professor Ahmed Ismail Samatar oo isna fadhiya rag badan baa ina sugaya waxaan dib la qaadayaa wax badan baa maqli doontaan wadanina will take it to the right direction thank you very much dhammaantiin waayo aad ma tahay Cabdiraxmaan Aadan in kasta oo ragii qaar iga sheegay aan rabin in la iga sheego ragga soo socda waayo waxaan filayaa madashan aynu wada joogno haddii aanay mashaariicdi ka jirteen xogaa mugdi bay noqon lahayd waxaan filayaa oo kale xisbiyada Somaliland ama kulmiyaha noqda ama wadani ama xisbiga kale oo cidba ha noqdee haddii gabadha Soomaaliyeed aanay dahabshiil wax dhigteen iyana wax badan baan hagaageen kaalinta gabadha ay ku jirto waa mid ayna qarin kareen weli waxaan hordhaca u sameeynaya oo dabaal degayaa inaan soo dhaweeyo walaasheen Huda soo dhawo السلام عليكم. وحفر حلها كلنا نسوون بمانتا. أنا قررت مان كنت لقلنا نحضله لكن وحنشعلها هنا سودا ويا دكتور فضل وما نقول سيارة من السوتا يا مرتشرف تدمان هالكن عاوز سوتيمي. markii hore inuu dabaaldegayna kulmiye weynaki soo dhaweynay madaxweyne Silaanyo wanaki si fiican ula dardaarmanay marka runtii xisbi kasba oo inoo yimaada ama wadankeena ka bilaabma farxad buu inoo yahay because taas waxayna tusaysaa siyaasadda inay inoo bislaatay inaynu gaarnay heer aanu ahaynayno qof kaliya ku wada daba faa'ilayno ee aynu nahay dad awood u leh inaynu dooranno dad ina hogaamin kara dad mas'uuliyad qaadi kara dad bedeli kara haddii wixii aynu markii hore aynu la nimi fikradii aynu dhalinay hadday midhahii keeni weyday inaynu wax ka bedeli karno haddana inaynu la xisaabtami karayno qofka aynu meesha fadhiisano yes dictatorshipnimadii waa laga yimi codkeennu inuu noqdo mid aynu ku xisaabtanno oo ninkaynu u dhiibayno kursiga aynu idhaahno maxaad noo qabanaysaa maxaad carruurta iyadii u qabanaysaa maxaad dumarkii u qabanaysaa maxaad dhallinyaradii u qabanaysaa maxaad dadkii waaweynaa u qabanaysaa infrastructure buu baahan yahay waddankeena in la dhisuu baahan yahay waxa wadankii ka soo baxay aad buu yar yahay isna shilmaanta yar dawladuhu inoo soo tuurayaan etriil maxaynu wadankeena ka qabsan karayna maxaynu dhisi karayna mustaqbalkeena saynu u dhahanan karayna marka ninkii horta yiraahdo mas'uuliyad baan qaadaya amaanadu waa culays kursiina tirahdo waan fadhiisanayaana runtii intaad adigu is leedahay ka manaafacaadso dhibta kaa gaaraysaa ka badan marka ninka runtii u babacdhigay yiraahdaana mas'uuliyad qaadaya waa geesinimo gacantaan u taagna hadhowna waan kula xisaabtamayna marka anigoon hadda ku dheeraanaynin waxaan rabaa horta si isku dubnaana qofkii inay yiraahdo wax baan qabanaynaa inaynu gacan qabanno
inaynu yani xoog iyo fikrad iyo lacag iyo talo iyo cilmi waxaynu ku taageeri karayno inaynu ku taageero inagoon ka hananaynin taa inaynu kulligeenu diyaarnahay inaynu barbar istaagno aan haddii maanta reer kulmiye hawshii ka soo bixi waayeen aynu idhaahno haye wadaniyo baladnana tus waxaad qaban karaysid yes marka insha allah we'll help you and we're here to support qof kastoo Soomaaliya ama Somaliland ka socda ama Soomaali meeshii doonahan ka socda yiraahdo wadankayga waxbaan u qabanaya dadkayga waxbaan u qabanaya so ha noolaato Somaliland ha noolaato qofkii raba inuu ku qabto thank you وايه markii rag hadlayeen dumarku sacabka aad u yareeyeen laakiin markii niba badsateen waan markale xisaabtami doonaa waayahay aad baan ma celiyaa mar kale wada aad baad mahadsan tahay hadalladaada adigoo waliba diyaar ah inaan ku soo kadiyay intii aad halka ka dhibatay ee dhagaha dadka gaadhay aad baan ugu mahadinayaa waayahay waxaan ku sii dhownahay gabagabadii hadalka macaankiisa ayaanu gudagali doonaa weli waxaynu ku guda jirnaa soo dhaweyntii aynu xafladan ama madashan isugu nimid inaynu soo dhaweyno Dr. Maxamed Cismaan Fadal oo isagu ah xogayaha xisbiga arrimaha dibadda xisbiga wadani oo aynu halkan isugu nimid hadalkiisa waynu dhageysan doonaa oo inoo soo socdaa waxaan ka horeysiin doonaa waxaan markii hore hadalkan bilaabay inaan ka ilaabay inaan tacsi u diro oo aan dhahdo ilaahay jannada raxmaha ka waraabiyo xalay oo faras magaalaha Minneapolis lagu dilay wiil iyo gabadh Soomaaliya intii ogeed iyo intii aan ogeynba waxaan filayaa inaynu faatixada u marno in dadkaasi xaalad xijaabtay oo inaga inaga tagay in ilaahay jannada raxmo siiyo ma dhacdadii ugu horeysay laakiin waa dhacdooyin fara badan oo isku soo daba jiray waayahay taasna inta aan kaga gudbo ilaahay ha u naxariisto qoladii xalay dhimatay iyo kuwii ka horeeyba islaam baa xamar tagtay dabeetana islaam kale oo xamar degan bay la hadashay waxay ku tiri hooy waxaan ku weydiiyey jalxadda maxaa u taqaanaa waxay tiri ashuun madiibadda maxaa u taqaanaa bay tiri waxay tiri baaquli killiga maxaa u taqaanaa bay tiri waxay tiri jalmad markaasay yaabtay waxay tiri meeshii afkala ka soo baxay waxay tiri hooyo nabiga calayhi salaatu wasalaam maxaa u taqaanaa markaasay tiri nabi markaasay tiri hooy haddaa isku nabi bay nahay maxaa uu ciidayda ka waalay professor Axmed Ismaaciil Samatar ayaa xamar tagay kadibna Hargeysa tagay waaya professorku labada afar lagu hadlay buu soo arkay labada siyaasadood buu soo arkay Canada uu tagay uu warramay عاوين كتوشين دونا أسود وياه صاحب كي بروفيسور أحمد إسماعيل سمته وياه هذا ما صدق وعجاج وين كسي قد بدونا مركله وحنسود وينيا أنا أقول سيجارة صاحب كي دكتور محمد عثمان فضل أو مدرسة نظر أو مرتين waxaan ugu dambeyntii siin doonaa khudbad qiimo leh oo idin gasha inuu dadweynaha u soo jeediyo inuu warramo funaanadihii wadan iyo koofiyadihii intii xidhatay markuu Fadal hadlo ama way xidhnaan doonaan ama way bixin doonaan labada wax kama dhaxayaan Fadal ku soo dhaweynay بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan u mahadnaqayaa runtii dadkiina sharafta leh reer Minnesota waxa markii labaad ee about 2000 waxaan malaynayaa 2007 inaan marimi aad iyo aad baan markan imaadaba u dareemaa inaan dalkii hooyo joogo oo kala dareemaa sida markan halkan imaado runtii sida isugu duwan tihiinba oo idin mahadnaqayaa inaad soo dadaasheen rag iyo dumarba
waxaan qolooyinkan martida ah waxaanu idiinla dheernahay markaan Somaliland joogno markaan hadii goor shirariya baanu qabanaa oo inala joogaan cid u sheegta wax lagu hadlayo ayaan labadiiba dhex dhignaa qof uma tarjuma laakiin way inay fahmaan marka taana waxaan jeclaan lahaa insha Allah inaan marka dambe waayo Somaliland wax laga yiri ma jirto martidina way noo yeedhnay marka almeeno markay inala socdaan way oran lahaayeen I would like to thank our friends here Republican friends and here at the Somalilanders. Somaliland is a new country. It's not yet recognized, but it's a democratic state which actually aspires to behave and to deal with its own people and its governance like the United States. And you, as the Republican Party, I hope you will get the opportunity also for the Somalilanders when you are holding conference or tell you about what we achieved there. Thank you very much. I still welcome you on this gathering is for one of the political parties in Somaliland. It's called Wadani. One of the 3 political parties. It's a democratic country. We have 3 political parties, and this is for Wadani. Most welcome. Walaalayaal, waxaan jecelahay inaan shirarkooda idinkuna asaa uga qayb gashaan oo idinku yeedhaan. Intaa ka sokow Somaliland waxay la tahay deemaka inay bisayl gaadhay oo heer gaadhay waxaan ka garanayaa deganaanshaha iyo isku dhex jirka waan garanayaa inaan kulligii wada wadan ahayn inaan Somaliland tihiin inaad sida community ahaan ii soo dhaweyseen markaan imanayay iyo imika caawaba marka insha Allah bidlaal kariim waan anigoo Somalilander ah wadanina abaan idinka sheekeyn doonaa dalkii idinka sheekeyn doonaa iyo waxa uu wadani ka qabo Somaliland imika sida idinkuba idinka muuqata xaqaana waa la koray waa la bislaaday waxa biseelkeeda mar walba ka aragtaan sida ay mucaaradadeeda iyo isu bedelayso xisbi mucaarad ahaan anagu wadani ahaan waxaanu qabnaa inaan mucaaradadii aan cilmeynay oo yooyotankii ka saarnay oo isxaqxaqashadii ka saarnay oo badana arrimaha la isku hayay marka taagan oo dad qof maagi aan ka saarnay oo badana arrimaha taagan ee dantu ay tahay inaan u soo daadegno imika saasaan wadi doonaa hadii alla yiri Somaliland anigu waxaan qabaa waxa ugu muhiimsan imika 2 ajende ayaa u yaala 2 ajende oo isbarbar socdo isku kaban 2 ajende waxa weeyaan marka hore waa dawlad baynu dhisanaa dawlad cusub dawladii waynu unugnay institutionskeedii baynu dhisnay marka wax dawlad baynu ku jirnaa waxaanaynu ku jirnaa dimuqraadiyadeyn 2 ajendo isu keen barbar socda ayaa ugu muhiimsan labadana waxa gogol u ah nabadda oo iyadana dhinaceeda aynu ka ilaalinayno 3 ajende ilaalintooda haddaynu ku mitidno waynu gaadhaynaa bay ila tahay adduunka quruumihiisa aynu ka mid noqonaynaa annagu 3daba waa u taaganahay wadani haddaanu nahay wadani waa xisbiga ugu cusub laakiin wuxuu ka soo dhex baxay bisaylkii Somaliland ay gaadhay inta ay xisbiya samaysato dabeetana inay haddana dib isugu soo noqoto inay garato inay dib intay isu saxdo dib isugu noqoto oo ay dabeetana mar labaad cusboonaysiiso dabeetana furto stoorkeenu 3 xisbi buu qoraa dambaa ku jirta waxa laga yaabaa reero iyo hadii beedmaayo bulsho cusub oo ururka siyaasadda dimuqraadiyiinta muxuu ahaa inkastoo dhaqankeena ay ku jirto haddana ta cusub ku koraysa baynu nahay in la isku keen qasbo oo aynu qabaa'il kala durkay oo kala fidan noqonine inaynu xisbi isugu tagno oo dantu isku keen qasabto isku mabda noqono ayaa 3 xisbi horta loo doortay wadani waa xisbiga ugu cusub waa xisbi dimuqraadiya waa xisbi runtii doonaya inuu ka faa'iideysto oo saxo wixii hore markii hore inaga khaldamay oo dabeetana vision cusub iyo dariiq cusub iyo jid cusub la yimaado dawladda imika dimuqraadi baynu doorashooyin baynu iyanu qabsanaa dimuqraadiyadda aynu doonayno doorashadu waa u tiirarka lagu qiimeeyo weeyaan Somalilandna waa u
haddii beed maayo waxyaabaha ay iyana ku mitido oo marka doorasho la qabanayo hadda goor waxa inoo barbar socotaa caalamka inaynu tusno inaynu u qalanno inaynu caalamka dalalkiisa ka mid noqono mas'uuliyad badan bay markaa dadkeenu saaraan dhinaca kale dowlad baynu dooranay dowladda Soomaaliya waa ogeydeen Axmed Maxamed Silaanya dowladdeenu dooranay 2010 June 2010 baynu dooranay markaynu dooranay halkaan ku yaraakiyo my friends asked me when it's appropriate for them to go and I told them I just want to say so I think if they are not understanding they're free to go so sida ma yiraahdo please yeah thank you for waiting for my remark thank you so much okay. بريان marka doorashadu wax weyn waa halbowle qarankan aynu dhisayno iyo dimuqraadiyadda aynu dhisayno بريان waxaynu maqmaqalaa doorashadii waxa ka hadhay imka sanad iyo 2 bilood baa ka hadhay laakiin waxa meelaha orordaynu maqalaa ama hoos aynu maqalaa ama kor aynu maqallo oo anigana igu soo dhacdo mar walba la yiraahdaa ama waa la kordhinayaa ama doorashadu dhici mayso anigu runtii xisbiyada dalkii baan ka imi saddexda xisbi qaran way wada shaqeeyaan doorashada waliba waanu ka wada shaqeynaa doorashadu sabab aanay u dhicin iyo sabab loo kordhiyo iyo sabab maalinkan maanta ah madaxweyne Axmed Maxamed Silaanyo oo inta la doortay lagu wareejiyay oo waqti aan waqtigiisa ahayn isagoo aan markana la dooran oo meel u fadhiyo anigu ma ogi mar garanayo waxaanu isku raacnay saddexdeeda xisbi intaas Somaliland consensus bay ku dhisan tahay waxaanu hadda kulmiyana waa nagu jiraa aanu miisaanka saarnay inaanu doorashada waqtigeedii inaanu ka sii diyaar garowno diiwaangelinta codbixiyaasha waxa la yiraahdo voter registration ayaa ka horeysa doorashada oo voter registration kii hore waa ta ogeydeen Soomaalidu waa ingenious in their own ways sida ay wax walba waxaad moodaa inaynu markaynu doono waliba markaynu doorasho diiwaangelinta tacab badan baa galay laakiin waynu biyo dhicinay oo haddii beed maayo mishan baynu u qaadanay oo mintoon baynu u qaadanay oo macnaheedu hore baynu ka qaadnay ilkadeeda hal doorasho ku galay halkii doorashana dawladdu ku joogto sidii qoladii wadani imika isu bedelaysay baana la isu bedelayo wanaga ka baranay anagu ilaa hataa qoladeedii halkan joogtay markaanu qabanana ama markaanu cidii aanu la tartamayno waxaanu leenahay sidii loo Axmed Maxamed lagu wareejiyay ha noqoto sida wadani dabad uu kala wareejinayo dabad kadibna ha noqoto Professor Samatar baanu sheekaysanay I think he will allow me to quote him waxa ugu qiimo badan buu yiri doorashada in qof la doorto waxa ka qiimo badan oo taariikhda gashay sidoo qofkaas u dhiibo marka hadii beed maayo laga hadiiba laga badiyay oo aan ugu sii dhigin marka waxay rabtay Soomaaliland ma geeyo doorasho la kordhiyo doorashooyinkii hore ee la kordhin jiray waqtiga ku cidhiidhi noqon jiray sax ma yahayn sharciga qodobka la cuskada ee dastuurka ku yaala article 83 qodob yar oo ku jira wuxuu yiraahdaa marka aafo dhibaato dhacday awgeed doorashada loo qaban kari waayo kaasaynu macmalay oo runtii isagoo khayr sharci ah sida loogu isticmaalo imikana aniga wax ila tahay waxa mas'uuliyad inaga wada saarantay kulligeen haddii dan aynu ka leenahay Somaliland annagu xisbiga ugu yar ugu da'da yar ugu khibradda yar baan nahay waar hadda cadabaan leenahay doorashadu oo hala tartamo oo hala wada dimuqraadiyadu taayirkeedu har ragmo ayaanu qabnaa waxaan leenahay xisbiyadu aad baa loogu dadaalay oo xisbiga wadani waliba aan ugu dadaalay diiwaangelintaasuna waxay doorasho xor iyo xalaal ah oo aynu ku kala ku majurgaroonay hadii hore noo sameynaysaa diiwaangelintii consensus baan ku sameynay nimanka caalamka iyana goobaan ugu yeernay qoladayna caawisa hadii goor iyaga u dhow waqtiga rida wafti bay soo dirayaan waan la hadalno waxaan ku nidhi waxaan doonaynaa inaanu diiwaangelintii la qabto diiwaangelin kale oo madaniya baa la barbar waday waxaan doonaynaa labada diiwaangelinoodba
in idinku waanu endorse garaynaynaa laakiin annaga siyaasiyan xisbiyada iyo doorashada waxa noo muhiima diiwaangelinta codbixiyayaasha ma doonayna inaa maalin walba wafti noo soo dirtaan waqtigu waa nagu cidhiidhi by December 31 sanadkan 14 inay dhammaato weeyaan ma nala shaqaynaysaan oo annagu waanu soo habaynaynaaye mise waa jiitanaysaan waxay yidhahdeen aanu idin eegnaya keena qodobadaas soo fuliya ilaa ajandaanu dhigannay ajandaha ilaa 5 waraaqood oo ay saddexda xisbiba saxeexeen oo hay'adda doorashooyinka komishanka qaranku u saxeexay oo wasaaradda daaqiligu ay saxeexday inkastoo marar badan dirqiya allahu iyo galgalasho aanu kaga saxeexnay marka ay qaadeen waanu ka soo baxnay wax allaal waxay u baahnaayeen maanta waxay joogtaa intii ugu dambeysay oo ahayd in habka ay noqonayso diiwaangelintaas la doorto oo ay technology-gii hore ee aynu ku khasaarnay ee lagu xaday laga gudbo oo the latest technology iriska la sawirayo lagu qaado lacagteediina la qorsheeyo ay u doonaan $10 milyan dowladda Soomaaliland wixii kaga hagaagay ay bixinayso way dhacaysaa marka diiwaangelintu September ka way dhacaysaa waxa kaliya oo ku xidhan madaxweyne Axmed Maxamed Silaanyo oo warqad markii hore qoray yiri diyaar baan u nahay ayaa laga doonayaa in waqtigeeda isaguna yiraahdo waxaan leenahay madaxweyne qaba waqtigeeda hay naga dhacdo diiwaangelintu aan dhamaysanay waxaan taa markaa idin leeyahay sabab ay inooga dib dhacdo doorasho ma jirto ma ogolin ma aqbalayno waynu ku shaqaynaynaa Soomaaliland danteeda maaha sidaasaynu ku shaqaynaynaa waxa aan raacinayaa markaan dawladdan dooranaynay tacab badan oo idinka iyo annaga anigu dadkii runtii waxaan ka mid ahay marka waddan laakiin dadkii aad u taageerayay hay'ad la yiraahdo aqoonyahanka madax bannaan oo bishiiba soo saarta analysis samaysa oo qodobo soo saarta oo ururisa dadka waa la wareeriyaa oo soo ururisa ajanduhu wuxuu yahay ayaan convener oo ahaa tacab badan baan ka geysanay talooyin badan buu markii dawladda timina aan bixinay himilada dawladdu aad bay iyada ku filan faankeeda iyo wax qabatay iyada ku filan ilaahayna ha barakeeyo hadii ay wax noo qabatay laakiin uu ka horeeyay dawladdan ajandihii dimuqraadiyadda hirgelinteeda bilowgina waa ka horeeyay ajandaha u yaalay wuxuu ahaa hay'adaha dawliga ah iyo dimuqraadiyiinta heedaheeda inay didbada u aasto oo sharciga ku dhaqankiisa ay hadii beed maayo mudnaanta koobaad siiso ayay ahayd oo u yaalay waxaan leenahay hadeer baa halkan laga sheegayay taas waxay ka bilaabantaa saddexda hay'adood ee fulinta iyo xeerdejinta iyo garsoorku mid waliba dastuurka waxay ku leeyihiin madax banaani waxaan leenahay weli waxa kaligeed wadata hawsha haysata fulinta taasuna waxay ka timaadaa hadii goor dhaqaalaha waxa loo baahnaa hay'adaha kale inay iyadu koriso oo gacan u fidiso maalintii dhaweyto baarlamaanka maxaa wixii qalalaasa iyo qaylo iyo buuq iyo waxaynan u baahnayn maxaa baarlamaanka keenay waxa keenay baarlamaanka 8 sano buu joogay canaan badan buu qabay waxa la oran jiray halkii ka jiifta waka isaga dawladda oversight-keeda leh isaga saylad ah way canaanteen oo way fadhiisteen oo waxay yiraahdeen once and for all balaynu dad soo ekaysiino gudiyadoodii iyo xiroosaadkeedii bay dabcanina ka shaqaystaan oo isnoolayeen isdoortaan wixii dagaal wuxuu dhacay baarlamaan xiroosaadkiisa ka shaqaysanaya gudiyadiisa ayuu u dhacay waxaan qabaa dibma taas tii dastuurku qabay ma aha way madax bannaan tahay madaxweynuhu markii la weydiiyay wuxuu yiri way madax bannaayeen dibmaanaan arag madax bannaani taana waxaan leenahay war way hay'aduhu ha kala madax bannaanaadeen hadii Soomaaliland doonayso in dunidu ay ictiraafto meel baarlamaanka commission wuxuu ahaa fulintu qoorta kaga duuban tahay ama xeerdejinta loogu yeerayo garsoorka farta loogu yeerayo adeer waxa la oranayaa horta hab dawladnimo iyo sharci ku dhaqan
la yimaada haddaynu ictiraaf doonayno waxa intaa raaca xorriyaadka xorriyatul qowlka idinku dhibi maayo oo in badan baa imika maqlayseen oo tii ugu dambeeyay waa taa qoynayd maxaa ugu dambeeyaa la yidho kaalasi sidaa la yidhi haatuf tiirarka haddii bayd maayo miidiyaha warbaahinta somaliland bay ahaayeen ninka qoraana jamhuuriya ugu horeysay jaridda yar aad laakiin jamhuuriya kuwii ugu horeysay taaba gala ayay ahayd daragii bilaabay buu ahaa waxaa dhalinyaro aad arkaysaa dadkay ka soo waxbarteen ee ka soo haddii bayd maayo somaliland dee usoo dagaalamay xorriyatul qowlka dowrkooda ka soo qaatay ayay ahaayeen waxaan u malaynayaa dee abaalmarin iyo ixtiraam mooyaane in cadho waa laga yaabaa oo dee maxkamad baynu leenaho waa khaldami karaa oo dee maxkamadda waa la isgeyn karaa marka waxaanu leenahay maxkamaddana si xorriyada waqtigooda ha uga heleen jariidaduna dambi haddii ciddii dambi lagu haystay ama wax qortay dee maxkamadda halala dhilgariya jariidada qaran baa leh jariidadu qaran baa leh iskama xidhmi karto haddii cid la suugaraynayo sharciyada caalamka ha loo raaco waxaanu qabnaa dee taasuba waa tii ugu dambeysay hubaal baa ka horreysay qaar kaloo fara badan baa ka horreeyey markaa war waxaanu leenahay war somaliland waxaynu ku caanamaalay dimuqraadiyaddaynu ku faanaynaa doorashooyinka xorriyatul qowlkaa ka muhiimsan xorriyatul qowlkaasu muxuu abuuray dadkeennu way koreen maskaxday ka koreen waa xor runtii waa xor baan qabaa taa waxaan uga jeedaa haddaad iminka microphone qaadato weeriyaashaa yaqaana islaamaha baradhada iibinaya ama marketka fadhiya haddaad microphoneka u dhiibto dhabarka sidaa iyagaan u jeesanin cidna ka baqayn ayaa wax allaalo waxay doonaan maskaxdooda kusoo dhaca ee ay xaq u leeyihiin ay odhanayaan xorriyaddu waa taa bini aadamku inay xoroobaan waa xor yaan afka haddaba la iska xidhin baanu leenahay marka annagu waxaan leenahay haddaan wadani nahay somaliland waxaan qabaa waxaasoo canaana anoo samaynaya trajectorygeeda socodku sidaa ma noqon marna ilaa anigu reer kanadaan ahaa 1992 baan ku noqday 29kii sanad quraa lagu jiray waxaan garanayaa halkay ka soo kacday hargeysa siday ahayd daydaygu sidoo ahaa wadooyinka iyo checkpointsku siday ahaayeen ilaa intay marayso marka horta uma boqo dadkeedaa raba dadkeedaa ilaashanaya dadkeedaa korinaya dowladdu waana timaadaa waana tagtaa markaynu iscanaananayno ama aynu dee analyska samaynayno somaliland as long as dadkeedu rabo cid allaala cid ka qaadisa ma jirtee waxaynu doonaynaa inta aynu qaban kari lahayn inaynu qabsanno had iyo goor meel suku inagaga dhacayaa haddii bayd maayo waranku waxaynu qabsan karnaa wax aada uga fara badan waxaynu qabsan karnaa inaynu quwadaha dibadda iyo gudaha isu geyno marka taana halkaasaan idinku daynayaa waxaan doonayaa inaan erey ka idhaahdo cadaaladda xorriyatul qowlka marka laga reebo somaliland waa dal dee dimuqraadiya oo la wada leeyahay oo dadkiisu wada leeyahay oo haddii bayd maayo 1991kii markii snm ay gogasha dhigtay dariiqii qaadi lahayd waxaa u banaanaa laba dariiq miduun dariiqaa reer saadku ku baaba'een ee dee lays cunayo ee layska aargoosanayo laysdaba cararayo dariiq ah gogoli loo dhiga aynu wada hadalno somaliland markaa brandkeedu waa wada hadal weeyaan adduunka siday ku gashee ay muxuu ahaa dee ay lagu yaqaanaana waa sidaa gogosha beelaha ka askuma de waqtigaa dee wada lahaa somaliland way wada saxeexeen hadday galbeed yihiin iyo hadday bari yihiinba kulli waa wada saxeexeen dalalkuna mucaahado dalalka iyo xuduudadu dee mucaahaday ku samaysmaan saxeex baa meesha yaalla horta waxaan leeyahay waa la wada leeyahay haddii sool imika ama sanaag bari mararka qaarkood waxaan leeyahay waa saxeexdeen
waxbaa ka leedihiin xaq baa ku leedihiin doorashadeeda ka qayb gala madaxweynenimadeeda xaq ku leedihiin saxiixeedii baad leedahay waxbaad ka leedahay waa dalkaagii wixii dhaca waanu ognahay inaad dumanti laakiin waa dalkiinii waxaan leenahay gudaheedana wadani wuxuu taagay taa markaa wadani wuxuu taagan yahay wixii dhiman wada hadal gogol la wada lahaan cadaalad ayuu taagan yahay waxaan ku ballan qaadaynaa in aanu haddii bayd maayo aanan maxaa la yidhaahdaa not leave a stone unturned inaanan ilaa heerka aanu ka gaari karayno inay Somaliland dadkeedu wada yeeshaan oo mustaqbal ay u dhan yihiin wada samaystaan mustaqbal wanaagsan bay yeelan karaysaa Somaliland runtii meesha ilaahay dhigay buqcadda ilaahay dhigay waa buqcad wanaagsan adduunka ubucdiisa bay joogtaa ilbaxnimadii galbeedka iyo tii bariga labaduba imika way korayaan labada dhexdoodii baynu fadhinaa haddii berigii hore Pacific Rimku uu ahaan jiray maanta halkay Somaliland fadhidaa ah waxaynu fadhinaa 90 million population ah oo aynu saaxiib la nahay baynu qarka u saaranahay dad entrepreneurs oo shaqaysan karaynu nahay waxaynu u baahannahay dawladnimada iyo governance-ka inaynu iska hagaajino sharciyada hagaajino oo laynagu soo dhiirado layna aamino oo dhaqaalaha dadku inoola imanayaan inagu aaminaan ayaynu u baahannahay waxba inagama xigto waana xaaraan inay faqri ahaato dadka reer Somaliland waxaan markaa xagga dhaqaalaha u yara durkay laakiin cadaalad waxa weeyaan inagu inaynu cadaalad siino dhaqankeena siiyo haweenka waa inta badan iyaga rag ka badan anigu qaba Somaliland dhalinyaraduna waa 70% baa la yiraahdaa under 30 labaduba xaq bay leeyihiin ana waxaan xisbiga wadani hadaan nahay waxa dunidu waxay ku xalishaa tirada badan haweenku hadii doonayaan marka la isdoorto way soo bixi lahaayeen laakiin dhaqankeena aan ilaa imika hadii bayd maayo u baahan inuu tadawuro awgii baan gabadhii u soo baxayn marka waa in waxa adduunku ku dhaqma koota loo sameeyaa kootahaasu waxaan daraasadeynay Arabta Afrika European Unionka adduunku oo dhammaan daraasadeynay ka inoogu haboon waa noo muuqdaa waa in koota la siiyaa waa inay baarlamaanka fadhiistaan waa inay hadii bayd maayo deegaanada hoose fadhiistaan waa inay guurtida iyo meel kasta la doorto fadhiistaan waa inay dawladda iyo cabinetka ka helaan qorkooda waa in gabdhaha la dhiirigelin shaqada u helaan war Somaliland kori mayso hadaan dumarkeedu iyagoo maanta la og yahay inay reeraha inta badan iyagu masruufaan hadaan laga qayb galin xukunka iyo horumarka hadaan laga gelin waynu ka qayb galin dhalinyarada waxaan leenahay waa 70% waa xoog cusub qabyaalada iyo hadii bayd maayo dawlad hadii bayd maayo dad runtii bisayl badan professorka garanayo de la soo hadlay oo jaamacada ay wish inuu erino oran lahaa dhalinyarada anigu wariga idinla de ilaa 20 sanadii ugu dambeeyay waan dhex joogay researcher baan ahay shirar baan inta qabtaa NGO iyo civil society baan ku dhex jiray xisbiyada imka xisbiga wadani waa sanadii waxaan imka ku dhex jiraa dhalinyaradu waan ogahay quality-gooda halka waxa ka soo socda power runtii waxaynu cilad leenahay oo dhan aad kaga seexanayso laakiin haddaan dawladdu aanay gacan qaban oo aanay shuruucda u hagaajin oo aanay role models u samaynin aanay noqonin waxayna cuduradeena kuweeni waaweynaa ay ina qaadanayaan ilaahay hakan intigaliya laakiin dhalinyarada shaqo kaliya maaha shuruucdaanu ka gelaynaa dastuurkeenu daabu ku xiraa baarlamaanka imika berigi dhaweeto in yar waxa dagaal aawadi lagu bedelay local government way ka qayb gali karaan oo dastuurka local government ma sheego laakiin wasaarayaal deeka marka kuweenuna way u qalmaan arinta dastuurka hadaan wadaninahay waanu hawlgali doonaa guurtidna waa 4 jir bay oranayaan waa goormo marka qof dhalinyaro uu ka qayb gali karaa war intaas kama xidhnaan doonto waynu hawlgalaynaa
idinka dadkiina dabadda oo xisbiyada iyo reer Somaliland waxa idinka doonayaa inaa issueska koorka ah ee xisbiga doonta ahawo inaynu kulligeen u wada hawlgalno waxaan marka inta cadaaladii mujtamaca ka iraahdo horumarka ayaan in yar ka oranayaa horumarka waxa ugu developmentka waxa ugu qiimaha developmentka maskaxda iyo dadka ana waxaan qabaa dadkeena taab nooc doonaha gale inuu galaa ugu muhiimsan laakiin dadku dawladda waxay u doortaan oo ay hadbid maayo inay qorshaha u sameeyaan oo liid gareeyaan haddaynan dawladnimada hagaajinin horumarka wadooyinka waa la dhisaa warshadahana waa la dhisaa haddaanad governance-kaaga iyo cadaaladaada iyo qawaaniintaada rule of law aanad dhisin ama gacan xun bay ku dhacaan ama sidii kuwa aynu burburinay ee haddii bayd maayo 20 sannadood dadkoo dhan lagu dhisay ayuunbay u burburi doonaan waxaanu leenahay waxaanu qabnaa in rule of law qaynuunka lagu dhaqmo oo cadaaladda dalka la hagaajiyo oo horumarka marka hore dawladnimo cusub baynu dhisaynaa dawladda chance baynu haysanaa inaynu dawladaha qaarkood entrenched yani wax culus dhagxan culus oo aan rogi karayn baa haysta war maanta chance baynu haysanaa inaynu wax walba wax wanaagsan ka qaadano sidaynu telefoonada iyo haddii bidmay dusha ugaga nimiyo internetka waar dawladnimadana waynu kaga iman karaynaa oo waynu hagaajisan karaynaa aynu qaadana ta wanaagsan marka horumarka wuu wanaagsan yahay imika halka dawladda Axmed Maxamed Siinaye maanta joogtaa dawladda kulmiye wadooyinka iyo dhagxanta way badan yihiin wadada Ceergaabo waa imika waa national project waxay la tahay national project-na waa la wada leeyahay Somalilandna way taqaanaa national project-na isla qabato waxaanu qabnaa in la wada taageero reer wadani kulligood meel allaale meeshii loo fundraise garanayo meeshii lagu taageerayaba waanu taageeraynaa taageera dadka runtii taageeray ee muuqda dibadda gudabana reer Somaliland haddii beed maayo sida wanaagoodu wuxuu muuqdaa markaas loo mobilize gareeyo waxaan leenahay hadaba dawladana mas'uuliyad baa saaran mas'uuliyad culus baa waliba saaran waxa saaran accountability waxa saaran marka hore marka ay lacag iyadu ururiso lacagta hay'adaha loo sameeyo wuxuu baa la sameeyaa laakiin markuu wasiir dhaqaaqe oo shandada qaato waxa horta warwar leh tii taxpayers-ka maniga aanu ku dhiibanay iyo tan miyaad isku daraysaa maada wada saxiixaya sidaad u kala ilaalinaysaa sidee lagu la xisaabtamayaa horta arintaas bal horta waa arin taagan kamana qanacsan anigu runtii meel lagu sheegayna war ma hayo waxaan leenahay markaa war dadka u sheega sida ay labadaas midna waa donation midna waa lacag waxaad u sheegaysaa dadka waxa laga keenay oo intii haddii England la soo maray iyo haddii Carabta la soo maray iyo haddii Minnesota la idinku imanoo la idinku soo socdaba waxaynu xaq ugu leenahay horta dadku muxuu bixiyay maxay dawladdu ku dartay maxaa caalamka uga keenteen war saddexaas weyn inoo kala cadaadaan marka hore maxaa dhiman maxaad ku qabatay marka waa ina raacdaa oo xisaab celin layna siiyaa taas waynu uga fadhinaa laakiin kulligeen waynu wada taageeraynaa wuxuu baan leenahay oo ku daraynaa dawladda waxa lagu dacaadeeyaa waxa lagu yiraahdaa anigu imka statistics halkan idin oran maayo laakiin contractyada iyo haddii beed maayo dariiqeeda badanaa ma mariso waxaan leenahay wadadu labunbay mid dee u ekaanaysaa weel ama siyaasadeed ama mashruuc lagu maxaafsanayo ama mashruuc wadadoo kaliya maahee lacagta dadka laga ururinaya dhaqaale gobolka gala oo shaqo siiya oo iyaga contractka la siiyo oo iyagu ay daamurka keenaan oo gawaarida dhisisa keenaan oo aan laga bixinin meelihii dawladda ku hoos ordi jiray
ayaan leenahay iyadana ha ku koro gobolku mashaariicda saasaa lagu kori halkanaa lagu sameeyaa marka waddo la sameynayo shaqaa loogu sameeyaa muj ha qaadato nooca aynu ogaano markaa waxaan leeyahay waxoo dhan waxay kusoo ururayaan waar waddadaasu inteebaa u qorshaysan sanadaa doorashadii ka hadhay iyadana naloo sheego balaanka markay idin yimaadaanna waxaan idinka codsanayaa inaad weydiisaan imisaa idin balaana doorashada markay inta ka horeysa inteebaa dhisaysaan oo aanu iskula xisaabtanaa ilaan ma daba furne waddo burcayo iyo oodweyne u dhaxaysa iyo hargeysa ayaa muddo badan madaxweynihii yimaadaaba intii doorashada la galay doorashadii la galaba waa lagu maxabsadaa waxa la yidhahdaa waddadaasan dhisaya madaxweyne aan tegin oo odhani ma jiro wariyay sidaa inaga noqonin baan anigu leeyahay oo waddo haddii midmaayo doorasho iyo inaga noqonin aynu kaga dhabayno haddaynu taa dhisno ta zaylacna waynu dhisaynaa ta muxuu ahaa dawga cadna waynu dhisaynaa ta salaxlee cad iyadana caddaan kale waynu dhisaynaa taa oodweyne waynu dhisaynaa kun kaleynu dhisaynaa ta xeebtaynu dhisaynaa xeebtaba way isku xidhaynaa waynu qabsan karnaa oo waynu ku baranaynaa maala yar baan idin siinayaa waddo laami hargeysi waddooyin laami oo miidhan bay noqoto oo idinka arkay waddadii laamid isfaanin maayo waddadii laamid ahayd ugu horreysay xaafadayda halkanaan ka tegey odayaal baan ururiyey waxaan inoo dhagaxan wadda ayna caddeeyi aynu wax kala ma haysane biyo ma haysano oo wax kala ma haysano bal tan aynu isugu tagno meerkii baanu yeedhnay waxaanu waanu is ururinay annaga lacag iska ururinay waddada yare laamid ah waa kilomitir 1 kilomitir aan dhisano jiciir buu ahaa wuxuu yidhi wallahi alxamdulilah rabbil caalamiin haddaad saa samayseen 70% $54,000 bay nagu kacday waddadii markii hore 100,000 siya laga hadlay $54,000 bay nagu kacday 30% buu bixiyey 70% annagaa bixinoo dadkan ka soo qaadnay modelkii uu ku shaqeeyay hargeysa oo dhan ku dhisay oo noqotay sidaasayna waddada ceerigaabana model uga dhigaynaa inta kalena aynu ku wada dhisno waxaan markaa hadalka waan idinku badiyey intaasi ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkii ku saabsanaa xaflad loo sameeyey dr maxamed cismaan oo isagoo markaasi ah xogayaha arrimaha dibadda ee xisbiga waddani sidaan hore bayn ku sheegay nolosha anaa aad ka arkayseen waxaa ka soo qayb galay dadweyne fara badan oo iyagu taageeraya u ah xisbigaasi waddani iyo dad kale oo u dhashay somalilan si kastaba ha noqotee barnaamijkan oo kale intaan aan mar dambe ku kulmi doono waa cali xalaale iyo wataran news oo sidaa iyo nabad geli